بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gabar ayaa u timid nin oday ah oo taagan wado laba jid la ah dhaxdiisa. waxay ku tiri adeer ii tilmaan labadan jid midkee ayaan qaadaa. ninkii odayga ahaa wuxuu ku yiri ii sheeg meesha aad u socoto si aan kuugu tilmaamo wadadii aad qaadi lahayd. gabadhii waxay ku tiri adeer meel aan u socdo ma jirto, mana aqaani meesha aan u socdo, laakiin adiga hal jid uun ii tilmaan, wado leh ii tilmaan. ninkii odayga ahaa wuxuu ku yiri haddii aadan aqoonin meesha aad u socoto iyo halka aad rabto, muhiim maaha inaan kuu tilmaamo ama aan ku yiraahdo wadadan qaad. labadan wado midka aad rabto ka qaad, maadaama aadan aqoonin. taasi waxaa la mid ah qof kasta oo nool oo aan lahayn ahdaaf iyo ujeedooyin uu u nool yahay, waxyaabo uu rabo inuu gaaro iyo meelo uu rabo inuu soo taabto. marka aad tahay qof hadaf leh oo ujeed leh, waxaad taqaanaa jidkii aad u qaadi lahayd, waxaad ka faa'iidaysanaysaa waqtigaadii, waxaad isku dayaysaa inaad qaab kasta u marto sidii aad ku gaari lahayd hadafkaada. marka ay kaa go'an tahay inaad hadafkaada gaarto, waxaad tahay qof asaga wax saameeya ee ma noqon doontid qof asaga la saameeyo. waxaad tahay qof asaga afcaasha iyo ficilada la yimaada oo mubaadir ah, laakiin ma tihid qof oo afcaasha ama waxyaabaha ka falceliya oo mar kasta uun falceliyo noqdo. marka aad tahay qof hadaf leh, hadafkiisuna u cad yahay, waxaad tahay qof og meeshuu u socdo, halka uu taagan yahay iyo inta u dhaxaysa, masaafada u dhaxaysa meeshuu u socdo iyo halka uu taagan yahay. haddaba qof kasta waxaa la rabaa inuu samaysto ahdaaftiisii nolosha uu gaari lahaa. ahdaafta uu leeyahay ahdaaf dhow, ahdaaf dhexe iyo ahdaaf fog. aad baan idiin salaamayaa, aadna waa u mahadsantihiin. salaamu calaykum.